aan dib isku xasuusino xaaladihii shalay iyo wixii iska beddelay suuqa hal iyo labo haddaan dul istaago wax walbana fresh ayaan ka dhigaynaa fikirkii aan shalay ka dhahnay lacagta dxyda iyo xaaladaheeda wixii iska beddelayna waan dul istaagi doonaa xalay horta waxaa jiray news saameyntiisa watay 4 saac bar dadkii joogay suuqa news saameyn lahaa soo baxay oo dhanka forms wax saas ah shalayna waa tii aanan iloobay maan dhihi karaa mise waa yar aan ka yar mashquulnay ma aanan fiirinay formsiga marka sabab darteed suuqii waxaa moodaa in more push ilaa hadda dollarka uu weak noqday xaaladii trendiga jihada ahayd oo 1 hourka oo ku ogeyn unbuu hore u sii waday okay so marka wax nagu cusub maysan noqon oo caadi iska ahayd waxba oo fikir ah oo aan ka bedelnay trendigan ma jirin laakiin waxaan ka dhawaajinay lifekii shalay ugu dambeeyay ahaa in one more time zonka in la boqday macquul tahay sidoo kalena gaab halkaa ku jiray in la buuxiyey okay then aniga shalay waxaan kala tagnay xaalad ah in uu suuqa jihadiisa caadi ay head trend seller so jihadii ayuu sii aaday wixii hadda kadib fikir ahna ay ku soo aroori doontaa inaan isla marsiino jiha ahaan iyo qaabka suuqa socda dxy inay week sii ahaan doonto taasi ayaan horta ku adkaysan doonaa marka fikir iyo aragtina lacagaha kale waxaa ka dareemi kartaa marka sida euro usd oo kale sida caadada ahayd jihadeedii 1 hourka ay hore u sii wadatay inkastoo ay meeshan ku dahday so daahitaanka isbuucaasi ilaa bilaa ilaa dhammaadkiisa waxaa ku fahmi kartay inuu ahaa news nooca saameyntiis in la sugayo laakiin saaka tirad yar oo qurux badan aan ka helnay oo shuruudaha entry modelka wax walba noo dhammaystiray haddii smart trader ahayd haddii aad ka wareysay fursaddan fursad aad u qurux badan ahayd saaka khamiis ilaa targetkeen ilaa logan ilaa highgan oo ahaa so ilaa suuqa marka kilebalo naga sareeyo ayaa waxaa moodaa inuu target garaysanayo oo kan nooga soo sokeeyo fursaddii shalay iyo wixii fikir ah oo suuqa iska bedelayna oo lacagta USDJ baan dul istaagi doonaa laakiin waxaan rabaa fursadii saaka aan qaadanay iyo kuwa la midka ah dhalinyartu ka faa'iidaystay suuqii juhdi siisay euro USD kan ayuu ahaa so GBP USD si la mid ah ayadana fursad ay bixisay oo la mid ah qaabka euroda USD ka si la mid ah ayadana saaka fursad ay bixisay oo waatii hadda aan groupka idin soo meeshan gareeyay 3 fursadood oo aad iyo aad u qurux badan ay saaka bixiyeen haddii tahay team SMC trade haddaa tahay fursadahan oo fursado isbuuci dahabi ah ay noo soo mareen kadib saameynta newskii shalay okay so shalay waxaa isku keen dambeysay isbeddel weyn maadaama uu suuqa galay jana waxaa isku keen dambeysay USD card ranginga ku jirto then newska uu soo baxay saameynta manipulationka ugu dambeynna jihadii suuqa ilaa looloogi uu sii sameeyey waa tii aan ka dhawaajinay haddii imbalancegan sidan loogu tago sida hadda muuqato waana macquul aan prediction ah siinay in dib loo soo trade gareyn doono anaga xaaladda shalay halkaa marayna ayaan ka falan qabanaya waa tii markii kandalka uu soo baxay oo asagan ku fashilmay inuu hor u sii socdo kadibna newskii xalay saameyntiis halka ay kasii durjisay suuqa forms okay USDJPY haddaa xasuusatiin shalay trade ka qaadanay oo asagana saameyntiisa lahaa oo aan ku kala tagnay open no ahead waxaan ku xisaabnay trade markaa 15 bip khasaaris inuu ahaan rajeynayo trade waxaan ka qaadanay bartaas okay intrigas halkaas ka qaadanay waxaan ku kala tagnay candlekan oo long positionka haddii 15 bip dib ugu soo daato inaan suuq haynin isla markii daqiiqad kama dambeynin kana soo booday then kana si toos nooga saaray trade-ka ayaday oo target garaysanayay ana xisonkeeda soo raacay in loo socdo supply zone-kii halka ahaa saakan waa laga sii daatay ilaa haddana suuqa jihadiisa sell ayuu sii aaday so marka meesha maxaan ka baran karnaa USDJPY xaalad ahaan in trendigeeda uu buy noqday then inay ku dacdo aysan waqti ku qaadan low high ugu dambeeyay kan ahaa kan high uu ku ahaa then kanna high low okay so hayaloogi haddana dib baa loo soo jibiyey sida shalay waxaa la abuuray new lower low then saaka another bit of structure kale hadda waxaan haynaa lower low so waxaan hadda kadib ka fiirino lacag ahaan USDJPY ani fikir waxaan qabaa inay supply zone tahay so haddii aan correction helno
aan trade kale entry kale soo dhisi karno so xaaladahan suuq in jihadiis uu buy furo oo haddana markii soo laabto hadda ka horna waan ka dhawaajinay oo badna waxay u badan tahay qeybaha oo u badan tahay qeybaha oo supply zone mise uu tradyada jihada u socda lasoo bedelo new siday u badan tahay okay suuq arkaysid new fresh high abuur isla markii haddana dib loo soo celinayo saameyn new meesha soo galayso taasina mar badan waan ka hadlay then cat jpy si lamid ah in badan waxay buy iska sii aadaba ayadan waxay soo bilowday trenda 1 hour intaanoo ah loolo aan loohaya aan isleeyahay imbalancegan baygii ahaa in dib loo trade gareeyo fikir noocaas waan ka qaadan karnaa lacagta cat jpy so marka isbuucan imisaa fursada helnay imisaa khasaarnay imisaan total helnay so beri jimcaha galabkii ayaan journalka dejinayaa maadaama hadda midweek ay noo marayso maalin khamiis ah so beri subaxnii london session galabkii waxaan dejin doonaa marka journalkii fadden nexa caadi tradyadeenii aan isbuucan ka faa'iidaysanay laakiin saaka waxaan kasoo kabanay lacagtii slka ahayd usd jpy euro usd targetkaasi ilaa 30 bib then ilaa hadda ay sii socoto ayna macquulta ilaa zonka in lasii buuxiyo noo calaamaysan gbsd dad ka mid ah maadaama labadan lacagood ay correlation yihiin labadoodaba ay buy macquul ah ay aadi karaan midkood aan ka qaadana then usd card oo kale item trade kale oo halkan aad u qurux badnaa oo halkan aan ka qaadanay asna wuu jira so marka update-ka aan rabo inaan isla fahanno waxaa waaye horta اسبوعنا ugu dambaysa aniga suuqa aan live soo galaayo ilaa laga gaarayo second week Janaayo 2026 hadduu ay ilaahayna gaarsiiyo waxyaaba aan rabo marka update-ka 2026 aan rabo ayagoo qoral ahaan inaan idin soo dhigo oo haddana aan rabo inaan sheekada aan ku daro waxaa waaye in aan waqti siin doono 2026 laba session live ah okay hadda hal session live ah haysanaa dhalinyarta culayska badnaan wuxuu uga imaaday dadka fahamka hadda lambda session joogin oo shalay new isu kiindambeysay fursadaha noocan ma heli karaan haddiiba dadka ay public ahayeen so si aan u sinno dhan walbo okay sanadkaasi waxaan isku diyaarin doonaa laba session oo live ah london session waxaan soo gali doonaa subaxii 3 sac I think morning nairobi time somali time markay tahay then ilaa waxaan ku jiraynaa ilaa iyo alafka salaada duhur laga aadamaayo sessionkaas live ah soo gali doonaa sessionka kale xilliga caadada hadda ayuu noo ahaan doonaa laakiin dib ayaan usoo durjin doonaa sababtoo ah 12 sac xoogaho a little bit late ay noqotay oo xilliyada entry ee dhaqaaqeen ay noqonaysaa so waxaan isku daynaa inaan keeno ayadana 10 sac ay bar so qaab timetable ahaan idinkugu soo diri doonaa meesha ayaan ka wada doonaa marka xaaladaheena fursadaha sanadka soo socda so aniga marka dardaarankeyga xaaladahayga waxaa waay keliya hadda wax life ah oo galabta noo furan oo macquul ah aydan ka hadli karno meesha nooma yaalaan wixii fursadaha asbuucan aan qaadanayna waxaan keli waqti siin doonaa beri jimca galabta ayaan journal ahaan u dejin doonaa backtestin waa samayn doonaa asbuucan imisaa fursadooda suuqa bixiyey ku dhisan smc strategy intermodelkeena qaabkeena slow and order imisaa tradaan helnay asbuucan beriyaan falanqeyn doonaa laakiin hadda kama sii hadlaya keli waxaan rabaa inaan isla fahanno hadda wax live trade ah asleeyahay waa qaadan karnaa ma jirto tradyada kulli aan dul istaageen oo arki kartaa kulli waa impulsive ayay wadaan so marka 3 topics oo ayadana macquul ah oo aan rabo inaan isla fiirino sanadkan soo socda bilowgiisa oo aan rabo inaan muuqaalo fiican ah ka diyaariyo dhanka community-ga waa meelaha ugu dhib badan saddexdan qodob technically ardaydeen dhalinyarta ugu badan way fahansan yihiin laakiin dhibaatada halkaasay ka jirtaa balankaasi iyo qofka inuu risk management laado trading psychology so saddexdaa topicna waa topicada hadda igu muhiimsan aan isleeyahay community way u baahan tahay dhan walbo iyo hab fikir ahaan ah oo hab ugu badnaato dhanka psychology ayadana step by step qodobo badan iyo nidaam badan wax kaga hadli doona marka saddexdan topic waxaan isku dayi doonaa sida ugu wanaagsan aan annaga ugu lifaaqno suuqa inaan sida ugu wanaagsan aan usoo diyaariyo oo each topicna aan dulkiis u dor istaago then aan youtube-ka aan soo geliyo si markaa dhalinyarta dhammaan ay uga faa'iidaysato marka sanadka nagu soo aadan inta hadda nala joogto inta naga dhimanay inta noo imaan doontaba hal mid aan ka sinaan doonaa in laba session live aan soo gali doono session walbana aan ku lifaaqi doono xaaladda tradingka markaas ay socoto so wixii marka nagu I think hadda culeyska ahaa oo sanadkan ku hagaagin isku day in ay sanadka dambo hadduu ilaahayna gaarsiiyo aad ku dadaasho
sidii aad u sixi lahayd mise aad marba aad reboost naftaada ugu samayn lahayd aad dib u kabasho aad ku samayn lahayd haddii wax ku hagaagsanaayeenna aad ahayd qof wixiisa u fiicnaayeen oo discipline ahaa consistency ahaa suuqii aragti badan iyo joogteen badan ka lahayn haddaad tahay meesha kasii wad dadaalkaaga annagana dadaalkeen iyo tiimka kaloo rabo inay soo diyaar garoowaan waxaa noo balanay second week janaayo inta hadda public iga maqlayso updatekaasna intaasaan rabo inaan idin siiyo maanta midda kale aan rabo inaan joogteen waxaa ka mid ah in dhan walba oo bugaagteena psychologigan inaan xoogaheeda dhan walba aan dhankan social media usoo gelino si ay dhalinyarta wax badan uga fahmaan iyo wixii update ah suuq ku saabsan sidoo kale especially hadduu macquul ay noo noqoto waxyaaba aan ku dadaali doono 2026 waxaa waaye qaybta fundamental analyze okay economically sababta hadda saameynta xalay oo kale suuqa ka soo baxday inay ogaatid oo u baahan tahay markaa tahay qof trader saameynta noocyadan suuqa movekan siin karto inaa ogaatid qaabka loo akhriyo hab fikirka iyo nidaamka fundamental ahaan suuqa laisku dul istaagana ayaan kusoo dari doonaa so marka wax in la sameeyo iyo in la sheego in la sameeyo wanaagsan mar walbo so inaan sameyno ficil ahaan ayaa isleeyahay taas ayaan waqti badan siin doonaa marka wax walbo dhan walbo anaga horta dadaalkeena waan meesha waan keenaynaa laakiin hab mindset iyo fikira iyo dadaalkaaga iyo aaminaad kalsoonida naftaada inaan insha allahu aad qayb weyn ka siisid sanadkan soo socda eyda aniga xataa waxaan ku dhihi lahaa hal tale ah 2026 haddii ku bilaabato 6 bilooda ugu horeysa naftaada tijaabi ha kusii dhuminin suuqa haddii aan lacala xataa anaa kuusii sheegaya kuu adkaato inaad suuqan lacag ka samaysid howlo kale iyo nidaamyo kale iyo shaqooyin kale iyo barnaamijyo kale xirfado kale oo lacag lagu sameeyo financial free lagu noqdaa jiro xooga saar laakiin naftaada ku iqaab inay waqtiga soo yarayso ayna guusha dhaqso keento waxaan oo aysan noqonin waqti badan kugu qaadanayso aadan ogeyn xilligaad profitable noqonaysid waqti naftaada u qabo oo ayaga ay ku noqon doonto waddada ugu fiican oo discipline so anigana dhan walbo communitygeena dhanka youtube dhan social media dhan walbo isleeyahay waa community waa ku caawin kartaa dadaalkayga waan keeni doonaa idinkana dadaalkeena insha allahu keena we have together we will move on wixii kaloo naga dhiman oo cilmi ahaan mise fikir ahaanna sida ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badanna intaan berigo ka dhimanna anaa idin soo la socodsiin doono marka alxamdulilah ilaa dhammaad dadaalkayga iyo dhan walbana idinka keenan haddaa isku darsana meel waan gaari karnaa so let's be community isku xiran oo life laba session soo galayso inaan ka dhawayno sanadka bible walba ugu horeysana inaan communitygan dadka ugu wanaagsan aan life call soo saarno dad yow bayoutka sameeya aan everyone of each idin ka mid ahna aan stage ku soo casuulno asagana markiis qayb ka noqdo community inuu dhiirigeliyo iyo waxyaabihii uu kala kulmay inuu guuleysto so intaa wax ka duwan oo anaga aan isku caawin karno ma jiraan ilaa anaga nafteena aamin so guys hadal badan hamo bigsho aniga dadka hadalka badan oo hadalku ku fiican yihi saa ogtihiinba marka laakiin waxaan isku dayayaa dhankayga iyo wax walba inaan si ficil ah iyo action ah inaan u bedelno so asxaabtaada iyo qof walba rabo inuu trading karajika leeyahayna wax ugu wanaagsan oo ku dadaal kara waxaa waaye inuu helo meel community oo asaga fursadiisa kala qaato asxaabtiisa oona ku ogaado wuxuu qabanayo wixii ka khaldan meeshay ku dhammaan karaan okay marka aniga zoomkayga iyo xaaladaha aan ugu talagalay intaas ay ahaayeen marka updatekana kolley wixii intaas ka badan iyo hadal kasii badan uu noo dhiman yahay waqti fiican oo qurux badan oo isku soo imaan doona isku soo laaban doona aan recharge aan kusoo sameyno nafteena bug iyo qalin aan soo qaadano wixii isleeyahay noo saxan mise wixii naga khaldanaa inaan iskala xisaabtanno so hadal iyo dhammaantiis inta qof hadda codkay maqlayso let's be keep real inaan suuqa lacag ka sameyno so lacag sameyntana technically keli nagama caawin doonto waxaa badan rabnaa inaan nafteena u dhiirigelino inaan ahaano meeshii ugu habbooneed oo aniga isbedel forex aan ka qaadan lahayn inay noqoto haddii adiga waxaa ku keeni weysid oo ugu adkaatana please and please waqtigaas kaga soo ilaman suuqan xaalado kale iyo nidaamo kale ka duwanaa samayn kartaa waqti ugu faa'iideyn kartaa laakiin hadduu asaga sameeyey qof saaxiibkaaga suuqan lacag ka sameeyey ayadoo adna waa ka samayn kartaa kumini jibinay laakiin waxaa la rabaa inay limit lahaadaan waa lagaga dhacdhacsiinaya maaha 5 sano 6 sano 4 sano inaad ku jirtid suuqan aad soo taagnaatid adoon ogeyn meesha xaaladda u socoto so waa inaad isqabataa sida ugu wanaagsanna aad naftaada ugu fadhisaa mise ugula xisaabtantaa siday lacag ku samayn lahayd marka 2026 waxaa noo ballanay
nidaam cusub iyo laba session oo live ah inaan waqti siino xaalad ahaan iyo suuqana aan si fiican uga lafagurno. So intaas ayaa uga baxaya. Haddii aad insha Allah labada asbuuc wixii ka dambeeya aad nasan kartid xaaladahaada kale iyo noloshaada kale iyo ganacsiyadaada kale iyo howlaha kale iska soo dibiro, so aan iskugu imaano nidaam cusub iyo system oo wadajir ah oo anaga aan ku shaqeyn karno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.